nidaam kan maamul wanaagga la yiraahdo siyaalo kala duwan baa loo qeexi karaa cid waliba halka ay ka eegto ayay ku xiran tahay hadii dhaqaalayahan ku qeexayaan si gaar ah u qeexaan hadii dadka development ka shaqeeya ay qeexayaan si kale u qeexaan hadii looyaradu qeexayaan qaab kale u qeexaan laakiin si guud waxyaabaha midaynaya waxa ka midaynu yahay habka go'aanka lagu qaato decision making sida loo sameeyo iyo sida go'aanka loo fuliyo sidoo noqonayo ama aan loo fulinin sidee buu noqonayo marka governance-kii meel walba uu gelayaa xukuumad iyo dawladna waa gelayaa iskuulkii uu gelayaa hotelkan inuu joogno waa gelayaa meel walba some sort of governance baa ka socoto shaqa ka socota meel kastoo maamul ka socdo ama maamul wanaagsan baa ka jira ama maamul xun baa ka jira wadamada kolka dagaalada ka soo dooga ee post conflict la yiraahdo inta dagaalo sokeeya dhacaan ay dadku istilaan doona inay dal dhistaan waxyaabaha ay dhaxlaan waxa kamid ah in hay'adahooda iyo institutionskooda yihiin kuwa daciif ah oo liito taagtoodu ladanta liidato oo maadaama dagaal yimaado waxa burbura hay'adihii dawliga ahaa iyo kuwii bulsho ayaa burbura kolka weak institutions baa yimaada talabaad ee timaada waxa weeye bulshadii baa kala qaybsanta oo markastoo dagaal sokeeyo yimaado bulshadu dagaalkaas sokeeyo way ku kala safan tahay dabadeedna markay heshiiso aragtidii iyo taariikhdii iyo wixii dagaalkaasi ku yimaadeen heshiis wali kuma wada aha taasina markaa waxay noqotaa dhibaato labaad oo dawladnimada dagaalada ka soo doogta ay dhaxasho marka nidaam dimuqraadi wax tar leh iyo maamul wanaag uma kala maarmaya sababtu waa maxay waxyaabaha dimuqraadiyadu u baahan tahay waxa koow ka ah waxa la yiraahdo hay'adaha madaxa bannaan ee koow ka yihiin matalan gudiyada doorashooyinka gudiga doorashooyinka daleeyahay waa inuu yahay mid aad u madax bannaan dhexdhexaada dhinacyaduna aan shaqo ku lahayn saameyn aan ku yeelan karin iyagana aan ka iman kareen si khilaafaadka doorashooyinka u yaraadaan oo cid gacanta ku haysa ay noqoto cid dhinacyada tartamaya aan waxba ku lahayn waxa kamid ah wuxuu u baahan yahay nidaamka dimuqraadiga ahi garsoor madax bannaan marka dadkan dimuqraadiyadda ku tartamaya ee kuraasta isku haysta ay madaxa isla galaan ee arrinkoodu adkaado meel ay ku wada kalsoon yihiin intay isla tagaan dabadna go'aan soo saartay go'aanka ku kala calaf qaadan baa loo baahan yahay halkaasay markaa iskaga xidhan yihiin dagaalada laga yimaado dimuqraadiyadda iyo maalmo wanaagu halkaasay iskaga xidhan yihiin sideen u fahamno muhiimadda ay leedahay good governance ku yeelanayo waliba marka la eego duruufta inagu ku jiro ee Somaliland iyo wadamada Afrika haddaba marka la leeyahay maamul wanaag baa jira ama maamul wanaag ma jiro ama wuu gaabinaya ama maamul xun baa jira halbeeg lagu eegaya muxuu yahay waa participation ka wax la yiraahdo ka qaybgalka bulshada meesha degan nidaamka dawliga ay leeyihiin waa inay ka wada qayb gali karaan dhamaantood oo ay iska dhaxarki karaan waa halkay kolka ay ka imanayso dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa halkay ka imanayso go'aanada institutionska go'aan gaaraya dadka ka tirsani inay wada fadhiyaan miiska dabeedna qofku muxuu dareemayaa meeshii go'aanka lagu gaaray qof ay fadhiyay marka macnaheedu waxa weeye danahaygu waa la ilaaliyay marka cabasho kama qabo problem kan la xiriira maamul xumada inaynu ogaanaa aqoon bay u baahantahay aqoon aan ahayn researchada dalal kale laga sameeyay iyo textbook wax ku qoran aqoon ku bees garaysan inaga duruufteena dhaqankeena haynteena iyo taariikhdeena siyaasiga bay u baahan tahay jaamacaduhu doorka way qaadan karaan haddii awoodda saaraan inay macallimiintooda iyo ardaydooda ku dhiirigeliyaan in laga sameeyo cilmi baaris sax ah sababaha maalmo wanaageena ama wax uga khaldan yihiin ama hababka lagu gaari karo taasi waxay siinaysaa kolka decision makerska kuwooda niyadda wanaagsan ee doonayeen inay wax saxaan waxay ka duulaan hababkay baan ku horumarin karaa مثلا هذا dadkeena madaxda ah caqabadaha uu waaweyn haysta waxa kamid ah qofka marka kursi loo dhiibo qofka saaba khabiir kuma aha kursiga loo dhiibay wuxuu u baahan yahay aqoontii kabi lahayd oo isticmaali lahaa aqoontaana waxa soo saari lahayd jaamacadaheennuna generally taama soo saaraan innaga Soomaaliland ma soo saaraan Afrikana guud ahaan ma soo saaraan waxa ugu weyn ee aan tabaya markaan arko sidaynu wax soo baranay waxa weeye tababarka aan qaataa aynu qaadanaa ma yahay mid dawladnimadeena wax ka tarayo dawladnimadeena ogahay maaha qofku wuxuu dhiganayaa aqoon aan ogeyn dawladda hoose burcosida u shaqeyso ardaygu waa soo saartay waxbaad bartay dawladda hoose ma yaqaan sida u shaqeyso waxna laga yaabaa inaad bartid arrimaha maamulka aad baraysid waxa laga yaabaa inuu barto agriculture-ka laakiin agriculture-ka dalkiisa inaanu ka warhaynin marka which kind of training ayanu bixinaynaa taa in dib loogu noqdo qofka in la baro tababarka maamul wanaag inuu noqdo si qof daacad u noqdo haddii aan qofku waxa jira diidin isbedel ma iman karo